daawadayaal suxufi iyo qoraa iyo waliba samafale maxamed haldoor ayaa maanta jaamacadda Armas waxay ku maamustay inuu noqday shakhsigii ugu saameynta badnaa guud ahaan Soomaaliland abaalmarintaasi oo ku mutaystay dadaalkiisa maxamed soo dhawow aad baad mahadsantahay saaxiib antar waan dhawahay MMTV-na waan salaamaya maanta abaalmarin qaali ah lagu maamusay madaxdii dalka ugu sareysay hortooda lagu maamusay in sida lagu maamuso dareen noocee ku sameynaysaa والله هرتا aad baan ugu faraxsanahay marka koowaad ilaahay baa u mahadnaqaya Soomaalidu waxay ku maamahdaa markuu ilaahay xoolo kula doonayo dadkeedu ku siiya waan u mahadnaqayaa jaamacadda Armas maamulkeeda madaxdeeda oo toddobaadkii u dambeeyay la soo hadlay oo igu yiri maalinta qalin jibinta ayaan kugu maamuusi doonaa shakhsiga ugu saameynta badnaa sanadkan ee Soomaaliland sanad walba jaamacaddu way siisaa anigana sharaf weyn bay tahay inaan dadka ay u garteen inay u qalmaan abaalmarintoodan qaaliga ah inaan ka mid noqdo maxamedow bal qiimeynta lagu qiimeeyay iyo abaalmarinta qaaliga ee lagu maamusayba dhiirigelin noocii adiga ku noqonaysaa والله horta markii hore anigu waxaan ahaa nin isaga naftiisa dhiirigeliya tanina waxay ku sii subaysaa shidaal hayaankii nolosha aan waday dhan walba lahaa aad baan ugu faraxsanahay sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa telefishinka MMTV bahdiisa oo runtii aniga si gaar ah mar walba ii garab taagan waxaan baliyo